نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فترك لنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم nabigeeni udgoona calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saddex nicmadood qofka waagu uula bariyo nicmadii adduunyada taallay oo dhan qofkaasi waxba lagama reebin ta koowaad waxa uu nebigu ka hadlay nabadgelyada wuxuu yihi qofka waa bariistay isaga iyo reerkiisii iyo dariskiisii iyo dadkii uu ku dhex noolaa oo nabad qaba mucaafa fii jasadihi oo jidhkiisuna uu u badqabo caafimaad qabo oo meelna ayna xanuuneyn cindahu quuta yowmihi yowmka keliya wuxuu quutanayana haystaa waa waxaad maanta cunto eed caawana ku cashayn kartaa quutalyowm la yidhaahda saddexdaa nicmadood buu nebigu yihi sal alla alay wasalam qofka la waabariistay nicmadii adduunyada taallay oo dhan qofkaasi ilaahay uu siiyey amniga ayaa la hormariyay nabadgelyada waa taa dadku masaajidda ay ku tegayaan ee ay ku kalahayaan ay wax ku baranayaan ay ku cibaadeysanayaan ibraahim calayhi salaam markuu beytka ilaahay uu asaasayeyna ee kacbada uu asaaskayga dhigayay waxa uu ku ducooyinku ku ducaystay ducada ugu horeysa waxay ahayd in ilaahay beledka uu ka dhigo uu joogo beled aamina rabbi ijcal hada albalada aamina wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaahu beledka aan joogo waxaad ka dhigtaa wuli beled aamin oo nabad qaba aniga dhashaydana ilaahow inaan asnaamta caabudno ilaahu naga dheeray oo naga ilaali buu yidhi waa gaalnimada bishu markay belata nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaysan jiray allahuma arzuqna alamna waaliimaan wasalaamata waalislaam rabbii warabuka allah hilaala rushdin wa khayr ilaahu bishaa belatay buu nabigu odhan jiray waxaad nooga yeeshaa bil noogu belata maaragtane nabadqab iyo iimaan nabadgelyo iyo islaamnimo rabbii warabuka allah saasuu nabigu odhan jiray bishaa belatayay
rabbigay iyo rabbigaa waa allah weeyaan, alla un bayna wada abuurayna uuma. marka saddexdaasi waa saddexda nicmadood ee bacda alislaam marka la eego ugu waaweyn. islaamnimada ayaa ugu weyn, nabadgelyada ayaa ku xigta, caafimaadka ayaa kusii xiga, quutalyoom qofka la siiyana uu kusii xigaa. quutalyoomku waa waxa maalinkaa un la quuto ee beritoole aan gaadhsiisanayn. marka nicamta ilaahay tabaaraka wa tacaala inaan waagii baryaba aan ilaahay ugu mahadino weeyaan. oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waagu markuu baryo wuxuu akhrisan jiray asbaxnaa calaa fitrati alislaam wa calaa kalimati alikhlaas wa calaa diini nabiyina muxamadi sala allahu calayhi wasalam wa calaa millati abina ibraahim xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin. alxamdu lilaahi aladii axyaanii bacdamaa amaatanii wa ilayhi nnushuur. allahuma bika asbaxnaa wabika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuut wa ilayka nnushuur. caaisha radia allahu canha waxay tidhi kaana yadkuru allaha caza wajalla fii kulli axyaanihi. noloshiisa oo dhan nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu xasuusanaya, xusi jiray mar walba. hadduu waagu u baryana ducadaabuu akhrisan jiray, ilaahow anaku adigaan ku waabariisanay, adan kugu waabariisanay weeyaan, oo nabadda adigaana siiyey, waagaa noo baryay, fadligaaguu noogu baryey. haddaan galabaysanana ilaahow adaa galabayntaa noo keeno noo galabeeyey. haddaan noolaanana nolosha adiga ayaa nagu deeqay, haddaan dhimanana dhimashada adigaa noo qadaray, ka xaggaaga aan usoo bixi doonana waa adiga buu nebigu odhan jiray. hurdada markuu ka soo kacana alxamdu lilaahi aladii axyaanii bacdamaa amaatanii wa ilayhi nnushuur. alxamdu lilaahi aladii radda calaya ruuxii wa adina lii bidikri. ilaahay baan ku mahadiyaa buu nebigu odhan jiray, ruuxdii intuu iga qaaday xalaytoole ii soo celiyey inaan isaga aan xusana maaragtaana ii idmay oo ii fasaxay. yadkurullah. nolosha nebi maxamed oo dhan calayhi salaatu wasalaam dikri bay ahayd. hadduu jiifanayo bismika allaahuma amuutu axyaa, ilaahu magacaagaasaan ku dhimanaya. waayo hurdadu waa dhimasho yar weeyaan, oo qofku habeenkii 6 saacadood ama 5 saacadood meelay naftiisu ay jirtay kama warqabo. xadiid waa kii nebigu lahaa annowmu akhu lmowt wa ahlu ljannati laa yanaamuun. dhimashada iyo hurdadu buu nebigu waa walaalo weeyaan, ahlaljannuhu jannada haddii ay galaanna ma seexanaya buu rasuulku yidhi. oo adduunka dusheeda maxaan u seexanaynaa? inagu hurdada waxaan u haysanaa raaxo inay tahay. hurdadu raaxo ma aha, waa nasasho weeyaanoo tacabka qofka maalinkii soo gaadhay ayaa ilaahay ugu talagalay habeenkii markuu jiifto in tacabka lagaga qaado lagaga bi'iyo. laakiin ahlaljannuhu jannada haddii ay galaan maba tabcayaanba haba yaraatee. wax ka walwaliyana arki maayaan, wax ka murugsiiyana arki maayaan, wax daal iyo tacab ku keenana la kulmi maayaan. laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiina baa ilaahay yidhi. ahluljannuhu jannada dhexdeeda wax tacab u haba yaraatee asiibayoo soo gaadhayaa ma jirto. wamaa hum minha bimukhrajiin. jannada ay galeena kuwa ka baxaya maaha. marka hurdada iyo dhimashada cilaaqa ka dhaxaysa, oo qofku xalay 5 saacadood ama 6 saacadood uu jiifay, nafsadaadu meelay jirta kama warqabtid. meel kastana way ku dalooshay. kii ku ilaalinayay waa ilaahay jalla wacala. malaa'ig baa qofka bini aadanka loo soo dirayaa oo habeenkii xasharaadka dhulkaa marmaraya o dhan kaa ilaalinaya. sanku wuu ku daloolaa, afku wuu ku daloolaa, ishu way ku dalooshaa, dhegtu way ku dalooshaa. waxaasoo dhan ilaahay baa bini aadanka ilaalinaya. marka waagu markuu baryo nebigu wuxuu ku ducaysan jiray alxamdu lilaahi aladii radda calaya ruuxii wa adina lii bidikrihi. ilaaha waxaan ku mahadayaa ruuxdii aniga igu soo celiyey, xuskiisii daacadiisana inaan cibaadaystay ilaaha ii idmay ayaa mahadla buu nabigeenu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam. marka nolosha nebi maxamed oo dhan waxay ahayd dikri bay ahayd. dikrigu ma aha tusbax la qaato uunoo meel lala fadhiista maaha. kaasi waa juz-u min adikri. subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah waa juz-u min adikri. masaajid buu soo galaya nabigeenu, allahuma kfir lii dambii waftax lii abwaaba raxmatik. masaajidkuu ka baxayay
allahuma اغfir lii dnbii wاftax lii abwaaba fadlik suuquu maraayey laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu yuxyi wayumiit biyadihi اlkhayru wahuwa calaa kuli shay wahuwa xayu laa yamuut wahuwa calaa kuli shayin qadiir waa suuqa markuu marayo dikrigaa ninka akhrista buu nebigu yihi waxaa loo qoraa alfa xasana waxaa laga dhaafaana alfa sayi-a alfa xasana intay tahay ma taqaanaa 1,000,000 oo xasanaa lagu qorayaa 1,000,000 oo gaf oo dembi kaa dhacayna waa laga dhaafayaa hadduu seexanaya bismika allahuma amuutu waaxya reerkiisa habeenkii markuu barakaynayo bismi اllah allahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana maa rasaqtana waa ducada uu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam ninka habeenkii xaaskiisa markuu la galmoonayo ducada akhrista buu nebigu yihi haddii habeenka ilaahay caloosha xaaskiisa haddii ilaahay ilmo u qadaro ilmahaasi wuxuu dhashaa buu nebigu yihi isagoo shaydaan uusan taaban bismi اllah allahuma janibna shayطaan ilaahu labada yada ruux shaydaanka ilaahu naga dheere wajanib shayطaana maa rasaqtana wixii maanta awlaad iyo ubadaad noo qadarteed nagu arsaaqdana ilaahu shaydaanka nooga ilaaliyo nooga dheere bal dikriga eeg cunadii socodkii safarkii rukuubu daabad baad fuuleysaa bismi illaahi subxaanaka inii dalamtu nafsii dulman faqfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant caliy bna abi aalib radia allaahu canhu ayaa daabadiisa markuu fuulaya buu adkaarta akhristay deedna samada ayuu eego uu dhoolla caddeeyey ninkii la socday baa ku yihi ya amiira almuuminiin bal noo sheeg wuxuu yihi sidaa aan hortiina ku samaynayo nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa anigana horteyda ku sameeyey markuu daabadiisa fuulayay buu nebigu adkaarta akhristay subxaanaka inii dalamtu nafsii dulman faqfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta markaasuu nebigu samada eego uu dhoolla caddeeyey deedna markaasuu ilaahay malaa'igtiisa ku yidhaahdaa eega addoonkaygii wuxuu gartay inuu rabbi kale uusan lahayn uu rabbigiisu aniga aan ahay waa ka dembi dhaafi weydiisanaya malaa'igteediiyo marag waxaad ka noqotaan inaan addoonkayga dembigiisa u dhaafay baa ilaahay yidhaahdaa gaadhigaaga adu aada iska wadataad fuulaysaa adkaartaa yar baa lagu leeyahay bal xasuuso bal adkaarta un xasuuso deedna adkaarta markaad xasuusato ilaahay baa kuugu dembi dhaafaya ibna cabaas allaha raalli ka noqday isagii aabihiibe wuxuu hi qofka daabad raaca daabaddaa markuu fuulana yidhaahda wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiica qabdathu yowma alqiyaama wasamaawaatu matwiyaat biyamiinihi subxaanahu watacaala camaa yushrikuun ibna cabaas wuxuu yihi ninka daabad markuu fuulo aayaddaa akhrista hadday daabadaasi ilaahay maba qadaree shil ay la gashay la dhacdo saadiqan aw kaana kaadiban waxaan anigu aan hubaa oon ballan ku qaadayaa buu yihi in addoonkaasi wax dhibaato ayna soo gaadhayn aflada qofka muuminka looma ogolo ubadkiibuu nebigu adkaar baraya calayh isalaatu wasalaam camar ibn abi salama markuu nebiga uu la cuntaynayey saxniga marna xaggan uu ka qaato cuntada marna xaggan uu ka qaatay marna xaggan uu ka qaatay yarkii yaraa markaabuu nebigu ku yihi yar wiilkan yarow sami llaaha bui cuntada bisinka u qabuu ku yihi wakul biyamiinika gacantaada midigna ku cun wakul mimaa yaliika dhinaca kusoo xigtana ka cun isagaa nebigu la cuntaynayay innaka laakiin maanta waxaad arkaysaa aabbahuna gooni baa loo cuntadiisa loo siiyaa caruurtana medmed bay u cunaan gabdhuhuna medmed bay u cunaan cuntada keliga loo cunaayo tarbiyadii meesha ma dhacayso tarbiya la rabaa ubadka in la baro la tarbiyadeeyo hadday isla cunayaana soomaaligu muxuu idhahdaa aabba ham ka sii wili dig ka sii ka boob inuu kaa boobine tarbiyad sax maaha taas yaa ghulaam sami llah buu nebigu yiri bisinka u qabo gacantaada midigna ku cun dhinaca kusoo xigtana ka cun waa xadiid ilaa qiyaamaha xadiiskaa lagu camal falaya bal ka warrama xagga kusoo xigta ka cun caaisha radi allahu canha waxay tidhi xeedha markaa nebiga aanu keenu saxaabadiisa la cuntaynayo meesha nebi maxamed cunada uu ka cuno waan garan jiray bay iyo saxaabada ku tiri waan garan jiray meeshuu nebigu ka cunteeyo nin saxaabiya u yimid oo yihi cuntada markaan cunayno waa kala tategnaa waxay yihi cuntadina waan cunaynaa ma dhargeyno
lacalakum taftariquuna baa nebigu yihi malaha markaad cuntada cunaysaan ayaa niba gooni gooni u cunaa haa bay yidhahdeen asxaabtu markaa buu nebigu yihi may ka daayo keligaad u cunaysaan meel iskugu keena cuntadiinna leedna bisinka u qabta buu nebigu yidhi ilaahay baa markaa inii barakaynaya islaamku aadaab weeyaan naxnu ilaa qaliili min aladabi axwaju ilaa kaiiri min alcilmi cabdillaahi bni mubaarak waraxmat ullaahi calayh ayaa odhan jiray naxnu ilaa qaliili min aladabi axwaju ilaa kaiiri min alcilmi oqoon badan oon maqalo waxaan uga baahi badan nahay adab yar oon ku camal fallaan uga baahi badan nahay buui diintuna waa aadaab طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون wuxuu yihi markii dambena wuxuu odhan jiray imaamkaasi adaabtii wanaagsaneed baan raadinoon doondoonnay goorma raggii edabta lahaayee ummadda tarbiyadeynaya markay hortay naga dhinteen waa asxaabtii nebiga ayuu u jeedaa markii ay naga dhinteen raggii edabta lahaa uu nebigu edbiyey ragguu nebi maxamed uu waxbaruu tarbiyadeeyey markay hortay naga dhammaadeen naga dhinteen ayaan ku baraarugnay buu yihi deedna markaasaan doondoonno hortaye dhammaadeen buu yihi camalfal buu ahaa diintu zamankoogi inay diinta ku dhaqmaan ay ku camalfalaan dikriga ilaahay ay badiyaan bidikr yadkuruuna allah markaasay xagga aakhirada u tartamayeen saxaabada fuqaradii muhaajiriinta ayaa nabiga u yimaadeen sal alla alay wasalam yaa rasuul allah aqniyadii muslimiinta bay yidhahdeen aqniyadii muslimiinta way naga badiyeen jannadii iyakaa naga qaatay darajaadkeygii dahaba ahla duhuuri bidarajaati alculaa wاlnaciim almuqiim darajaadkii koreeyey iyo naciimkii muqiimkii joogtada ahaa ee daa'imka ahaa ila nicmadda adduunyadu joogto maaha nicmadda adduunyadu joogto maaha way dhammaataa laakiin nicmadda aakhiradu waa joogto kaa dhammaani mayso dhallinyarnimada adduunyadu way dhammaataa laakiin dhallinyarnimada aakhiradu kaa dhammaani mayso jannada adduunyadu way dhammaataa haddaad janno samaysata adduunka dusheeda way dhammaan adaa ka dhiman ama iyadaa kaa baabi'i laakiin jannada aakhira ma dhammaanayso nolosha adduunyada dhimashaa ka dambaysa nolosha aakhirana nolol abadiyo waritaan abadiya ka dambeeya caafimaadka adduunyada xanuun baa gadaal socda laakiin caafimaadka jannada muminka lagu siiyo weligii xanuun ka dambayni maayo dhallinyarnimada aakhira ma gaboobayso iyadu saxaabadu markaa waxay idhahdeen nimankii walaalaha ee aqniyadii maalqabeenadii jannadii darajaadkeyga ayakaa inooga badiyo naga helo inagu horeeyey muqiimkiina ayakaa qaata nicmadii daa'imka ahayd markaabuu nabigu ku yihi sidee layniga badiyey balii sheega waxay idhahdeen xagga salaada waan ka simanahay xagga soonkana waan ka simanahay laakiin waxay nagu dhaafeen nebi allow maadaama dhaqaalihi lacag ay leeyihiin xajkii bay tegayaan anagu ma tegi karayno sadaqadii bay la baxayaan sadaqad la bixi kari mayno zakadii bay bixinayaan zake ma bixin karayno cidqu raqaba addoommaha intay soo gataan ay soo iibiyaan ayay odhanaya ilaahay dartii baan kuu xoreeyey magaalada galoo iska xoogso xintaasoo dhan bay nagu dhaafeen bay yidhahdeen nebi allow seen u gaadhna anagu markaa faqiirkoogu iyaka ka haniga wuxuu kula tartamayay aakhiro inuu kaa horeyn faqiirkeenna zamankanna ka haniga intuu sidaa u eega buu leeyahay waxa uu haysta adiguna maad haysatid ah isku aragti ma nihin markaas ama faqiirkeenna zamankan waxa uu ku dadaalayaa xoolaha adu aad haysato inuu kaa qaado suu kaaga qaadaba faqiirka zamankoogu haniga xilligaa jooga wuxuu kula tartamayey sideen maaragtaani aakhira raggan aan u gaadhna aakhira inooga badiyeen faqriga adduunka isaga ku haysa waxba ma arkaayo laakiin wuxuu ka fikirayaa ninkan faqiirku fii zamani nabiy muslimka haniga sidee buu aakhirada kaaga darajad sareeyaa sideed markaa u gaadhay low kaa darajo sareynayaa oo zakadii buu dheer yahay oo sadaqadii buu dheer yahay oo cidqu raqaba addoomaha la xoreynayay buu dheer yahay oo jihaadkii buu dheer yahay oo xajkii buu dheer yahay oo cimradii buu dheer yahay oo ixsaan kaloo badan buu ninka qanigu samayn karaa masaajid buu dhisayaa madaaris buu furayaa macalimiinta qur-aanku bishaar siinayaa sadaqad buu la baxayaa aytaamtuu wax siinayaa ilaa ninka muxsinka ilaahay dhaqaalihiisa uu meel fiican u mariyey sina darajadiisa lagu gaari maayo nicma almaalu saalixi lirajuli saalix markaa buu nabigu ku yihi raggii fuqaradii muhaajiriintii wuxuu yihi camal baan inii sheegi kuwa inaga horeeyana aada ku gaadhaan
kuwa inaga dambeeyana aad kaga badisaan axad niga fadli badana aakhire inuusan jirin inuu yimaado ilaa mid sameeya sidaa aad samaysaan ama ka dheereeyo niga dheereeyo mooyaane waayahe noo sheeg nebi allow salaada markaad ka baxdaan buu nebigu yidhi subxaana allah 3 jeer baad odhanaysaan alxamdu lilah 3 jeer baad odhanaysaan allahu akbar 3 jeer baad odhanaysaan intiibay markaa intay maqleen bay la noqdeen walaakiin zamankii nabigeena sal alla alay wasalam cilmiga caloosha laguma haysanaynin cilmiga maskaxda laguma haysanaynin cilmiga waa lagu camal fali jiray camal falka cilmiga lagu yeelayn jiray kadibna cilmiga ummadda la gaadhsiin jiray oo saxaabada waxaa lagu tarbiyadeeyey balliq maa unzila ilayka min rabbika aladiina yubaliguuna risaalaati illaahi nebi maxamed baa shaqadiisu ay tahay inuu risaalada ilaahay uu dadka gaadhsiiyo ummadda nebi maxamedna waxaa lagu ammaanay taamuruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkar dadka ayaad wanaagga faraysaan xumahana aad ka reebaysaan saxaabada waxaa lagu tarbiyadeeyey wixii nebi maxamed ay ka maqlaan inay markaaba iyakuna ummadda ay usii sheegaan oo waxay ku shaqaynayaan balliquu canii walow aaya aayadna ha noqotee kii maqlow ummadda kale sii gaadhsiiye deedna xadiidkii baa gaadhay raggii kale markaabay fuqaradii muhaajiriintu ayagoo aada u murugoonaya ayay soo noqdeen yaa rasuul allah xadiidkii aada noo sheegtay way maqleen adkaartii way nala sameeyeen laakiin waxayna dheer yihiin weli xaggii dhaqaalahayna dheer yihiin markaa buu nabigu yihi dalika fadl llahi yuutiihi man yashaa dalika fadl llahi qofka haddii ilaahay uu dhaqaalo uu siiyey oo uu dhaqaalihiisii meel wanaagsan uu ku bixinayo waa nicmad waa fadli dheeraad oo ilaahay ku doon u siiyaa buu nabigu ku yidhi waa meesha culammadu ay yidhaahdaan ma faqiirka muminka faqiirka ayaa fadli badan mise haniga shaakirka ayaa fadli badan muminka faqiirka ee saabirka ayaa fadli badan mise haniga shaakirka ayaa fadli badan culamada qaar waxay yidhaahdaan muminka faqiirka fadli badan bay yidhahdaan markaasaa qoladii kale waxay yidhahdeen siduu ku fadli batay bal sheega xadiista nebigay soo daliiliyeen yadkhulu lfuqaraau ljannata qabla alagniyaai b500 caam fuqarada muminiintu akniyada muminiinta jannada waxay uga sii hormarayaan buu nebigu yidhi oy uga horeynayaan 500 oo sanadood bay kasii horeynayaan buu rasuulku yidhi 500 oo sanadood ayuu muminka faqiirku jannada kusii hormari doonaa kadibna hanigii shaakirkii waa la xisaabi isaga oo waa la xisaabi adduunyada xalaasheeduna waa xisaab xaaraanteeduna waa ciqaaba ogaada caliy bn abi aalib radia allahu canhu ayaa la weydiiyo lagu yihi sif lana addunya cali o adduunyada noo sifee markaasuu ku yihi maa asifuhaa oo adduunka maxaa niigu sifeeyaa bal ii sheega maxaan ku sheegaa maxaa ku tilmaamaa u aamusa cali nin fikir badan buu ahaa murug badan wuxuu yihi awaluhaa canaa horta adduunkaa nii sheegi buu yihi dhegeysta awalkeegu waa tacab buu yihi waa daal nin raaxaysanaya adduunka ma jiro maanta faqiirkuna uu walwalayaa haniguna uu fikirayaa faqiirkuba la uu fikirayaa oo wuxuu ka fikirayaa halkee lacag iyo adduunyo ka heshaa haniga maalqabeenkuna uu walwalaya wuxuu la walwalayaa xoolahaaga bilow la dhac wadanka bilow dagaal ka dhac wadankan intaasoo aad aqalaad ka dhistay bilow dhibaata ka dhacday shaqaalahaagu bilow ku dhac xisaabtaadi masaxbaa mise waa lagu dhacay waa ka xafiis walba kaameraad u ligay dadkii ila waa waswaas buu qaadayaa marka adduunyada awalkeegu waa tacab aakhiruhaa fanaa aakhirkeeduna waa dhammaad xalaaluhaa xisaab teeda xalaal kugu soo gashana waa lagu xisaabi aakhire ogow xaraamuhaa ciqaab ta xaaraan kugu soo gashana cuquuba yaa ku dul taalla waa lagu ciqaabi man istugniya fiiha iftutina buuhi ninka adduunka dhexdiisa ilaahay uu hanti siiyey ee ilaahay hani uu ka dhigay uu fidnoobay buuhi uu fidnoobay waman iftaqara fiiha xasan ninka adduunka dhexdeeda faqiir ku noqdana kaana murug baa dishay buu yihi nina uu fidnoobi oo lacagta waa fidnad salaaday kaa leexin cibaadaday kaa leexin
khayrkii kaa leexin wanaagay kuu diidi masaajidka markaad timaadi markaad tukatidna inta qalbigaagu xisaab uu ku maqan yahay ayaa inta khushuuc iyo khuduucaad ku tukanaysa yamaa badan inta salaada markaan tukanayna faradka sheekhu hadda wuxuu nagu tujiyey suurat lmuzammil buu inoo gaabiyey salaat alfajr bay ahayd oo in la dheerayaa fiican salaat alfajr leanna salaada fajrka qur-aan baa ilaahay ka cabiray wa qur'aan alfajr baa la yidhi laakiin waa imaamyaduna inakeena ilaalinayaan haddana bal ka soo qaad waa ku tukanaba idaa jaa nasrullahi baa laynagu tujiyey waa suurad yaroo gaaban ma inta qalbigeenu xaadirka uu yahee imaamka aan gadaashiisa joogno qur-aanku u akrinaya aan tadaburayna ayaa badan mise intaan adduunyada ka fikrayna badan intuu qalbigeenu maqan yahay baa badan faqiirkiina uu murugsan yaho meel buu fadhiyaay wuxuu leeyahay adigu ilaahay baa ku nacay oo lacag ma haysatid kii qanigiina waxa uu ka fikirayaa waa lagu dhacayaa lacagta sidee u ilaalisaa ama lacagtaas shilinka sidee shilin kale ugu soo dartaa marka adduunyada xalaasheeduna waa xisaaba ogo oo ninka qaniga banka qiyaama markuu joogaa waxaa la odhanayaa joog adigu had dadka ka had maxaa looga reebayaa xalaashii ilaahay uu soo geliyey xalaasha ahayd meeshuu ku bixiyey iyo niyaddii u baxiyey baa laga xisaabin baa la yidhi faqiirkii laakiin jannaduu gala isagu ila waxba ma haysan isagu yahay inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab kuwa adduunka dusheeda lagu ibtileeyo faqri baa lagu ibtileeyey xanuun baa lagu ibtileeyey colaad baa lagu ibtileeyey dhibaataa lagu ibtileeyey way sabreen oo way adkaysteen ilaahay waxa uu leeyahay kuwa ajarkooga mushqaayadooda balaa xisaab bay ku qaadan doonaan baa ilaahay yidhi marka qofkii muuminka faqiirkii jannadii buu galay ha gala jannada bay culimmada qaar leeyihiin waxay qolada qaniga shaakirka fadli badan ay daliilsanayaan weligiiba jannada ha ka horgalo ha galo jannada marka laysla soo galo darajaadka jannada waxaa u sarayn doona ninka muuminka qaniga shaakirka lanna miskiid buu dhisay faqiirku miskiid ma dhisin taajirku madrasad buu dhisay oo 200 oo arday xufaad quraan intuu ku soo xereeyay ayuu maaragtaan boarding intuu ka dhigay buu yiri dhaqaalahoogan aniga bixinaya macallimiinta bishaarkoogi meel buu saaray sanad kastana waxa uu soo baxaysa 50 qof oo xufaad quraan ayaa quraankii la barayaa oo soo baxaysa معلمين بين نقونيان علماء نقونيان خطباء بين نقونيان فقهاء بين نقونيان قضاة بين نقونيان دعاة بين نقونيان وحاسونا نكي غني شاكركا صحيفة ديسا إلهي وقريا صحيفة ديسا وماشى ورجل عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه فضل بن عياد بكيري مثلك لولا مثلك وأمثالك ما اتجرت بورجلي يعني adiga iyo rag kula mid ah hadaynan adduunka jirin tijaarada iyo ganacsiga kama shaqeeyeen buu yiri waxaan ganacsiga uga shaqeynayaa adiga iyo imaam bukhari iyo culimada xadiiska nabi maxamed weeleynaysa ee ummadda nabiga cilmiga dhaxalkii nabiga u reebaysa si aynan ugu mashquulin adduunyo ayaan anigu adduunyada inugu shaqeynaya ogaada buu yiri masaariifta reerihiina aniga madaxa ii taallay aniga igu halleeya inkuna ummadda diinta baro diinta ilaahay u shaqeeyo buu ku yiri qaniga shaakirku waa kaas markii ninka imaam bukhari rahmatullahi alayhi nafaqaynayay ee masaariiftiisa iyo reerihiisa kaga hagaagay masaariiftooda waliba aimmatul islaam kulligood marka la eegay nin afar xaas wax ka yar lama bajirayn baa la yiri intaas oo xaas rag lahaa ayu abdullah ibn mubarak oran jiray reerihiina masaariiftooda aniga igu dhaafo igu daaya inaguna ummadda diinta u barto diinta u weeleeyo buu oran jiray marka ninka imaam bukhari nafaqaynaya masaariiftiisa dhiibayay ninka Abu Hurayra wax siin jiray ninka Fudayl bin Ayaad reerkiisa masaariifta siin jiray iyo faqiirka muslimka gida rosbada isku ajar maaha markaas isku mid ma noqonayaan marka qaniga shaakirka ay culimadu leeyihiin hadhow jannada markuu galaha isaga fadli badan لذلك صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم خير كأيه ترتميين هدونك وحي دبك السوق قارنا ديباتو ما بأركين بقى فقرق وحبو ما أركين حنون كدع وحبو ما أركين داجة وحبو ما أركين وحلعان وحبو ما أركين حبا
masaajidku nabigu soo galay sal alla alay wasalam xilli madiinat almunawara ay tahay dhaxan markaabuu nabigu ka soo baxay guriga caaisha deedna wuxuu arkay ninkii la odhan jiray rabiicata binu kacb alaslami waa saxaabi jaliila waa ahlu sufu ku jira ahlu sufu waxa weeyaan waa rag masjidkii nebi maxamed gadaashiisa dambey degan yihiin magaalada madiine qareen iyo qaraabo kuma lah xataa aqal ay galaan ma lah meel ay wax ka cunaan ma laha nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadiyada loo keenu nabigu wax ka siin jiray hadday sadaqad lala baxayeen wuxuu jiray iyaga siiya sadaqadaas fadaalo iyo rabiica iyo abaa hureyre iyo ahlu sufa way badnaayeen 70 waa lagu sheegaa 90 bay culimmadu ku sheegaan qaar 200 bay ku sheegaan qaar 400 bay ku sheegaan marna tiradoodu way biireysay oo 70 bay masjidka nabiga ku dhex fadhinayeen marna nabiga sallallahu alayhi wasallam aryaaf almadiina magaalada madiina reeraha iyo tuulooyinka u dhow dhow ayuu nabigu u diri jiray oo oran jiray dadka quraanka soo bara reerahaasi waa islaamayaan oo diintii bay jeclaadeen ordoo dhex fadhiiso faatixada soo bara reerahaasi weli ma islaamin islaamnimada gaarsiiya oo nabigu dacwada u diri jiray iyaka raggani marka ahlu sufay haayeen magaalada madiina qareen iyo qaraabo kuma ilahayn ninka la oran jiray rabiicata binu kacb alaslami oo nabi maxamed khaadimkiisa ahaa habeenkii markuu nabigu u soo kaco salaataleylka ayuu nabiga biyaha u keeni jiray biyaha uu ku weyseysanayo nabiga u soo qaadi jiray cadaygu nabiga u soo qaadi jiray markaa buu nabigu arkay rabiica oo dhaxmoonayo sadaal dhaxan calooshana cunta uguma jirto difaaca jirku uu yaraanaya markuu qofku maalmo dhan 3 maalmood cunto markuu uu waayo difaaca jirkiisa uu yaraanaya dhar dhaxanta ka celiyana may qabine gooyar baa haysanayeen dhinaca saas kugu qaban jireen sidaas uu qarqaraya markaa buu nabigu ku yiri rabiica labbayk ya rasuul allah waxaad doonto caawa ii sheegay buu yiri bal waxaad doonto sheego caawa war hadalka ayaa leh ma ahin wasiir ma ahin madaxweyne ma ahin maalqabeen alqabeen intuu ku ballan qaado ballanta kaaga baxaya ma wasiir ballan intuu qaado ballanka kaaga baxaya ma waa nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam kula rabiicow waxaad caawa jeceshahay ii sheegay buu ka yidhi salli waxaad doonto sheego caawa markaa uu saxaabigii yaabo uu fikray as'aluka muraafaqataka fi ljanna buu ku yidhi inaan jannada rafiiq kula noqdo ilaahay weydii buuhi bas shaksigan ku leh waxaad doonto sheego waa muxamed calayhi salaatu wasalaam waa sayidu waladi aadam calayhi salaam waxa ilaahay uu siiye duco la aqbalo mustajaabo ah hadduu nabigu yidhaahdo calayhi salatu wasalaam ilaahu buurtaa dahab ka dhig buurtaasi dahab bay noqonaysaa hadduu nabigu cantoobe ciida soo qaadu yidhahdo ilaahu ciidda dahab iiga dhig ilaahay dahab buu ka dhigi karaa laana nebi maxamed ducadiisu waa mustajaabo weeyaan waa imaam lacdam weeyaan khalqiga ilaahay abuuray oo dheebaka qiyaamo imanaya waa kay shafaacadiisa hoos iman doonaana ducadiisa loo aqbali doono kaabaa kula rabiica waxaa doonta caawa ii sheego markaa buu rabiica yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna aqal uu u baahan yahay ma xasuusan reer uu u baahan yahay ma xasuusan dhar uu u baahan yahay ma xasuusan cuntuu u baahan yahay ma xasuusan nolol fiican inuu ku noolaaduu doonaya wixii oo dhan uu iloobay waayo fursadan buu gartay inayna kusoo noqonayn hadday maanta dhaafto waama soo noqoto fursa saciida fursa ayiba tara carabtu fursa laa tudayac dee lagaa idhahda maanta madaxweynaha wadankana maanta ku qaabilaya kaalay maxaad diyaarsan lahayd bal sheeg shayga adiga agtaada kuugu qiimo badan yaad u sheeganaysaa soo ma boos baad u baahan tahay magaalada santarkeega niyo maanta kula kulmay adaa ii yeedhee madaxweyne booskaasaan u baahnay haysiiya saxaabigan radia allahu canhu shaksigan la hadlaya qadarkiisuu garanayaa makaanadiisuu garanayaa waxa saxaabigan u kala cad welibana noloshan adduunyada iyo nolosha aakhira farqiga udhexeeya ayuu garanayaa jannada adduunyada iyo jannada aakhira farqiga udhexeeya buu garanayaa deedna markaasuu yihi as'aluka muraafaqataka fi ljanna yaa rasuul allah wax kale ma rabi aniguye inaan adiga jannada kugu dhex arko oo rafiiq kula noqdo ilaahay intaa ii weydii markaa buu nabigu ku yihi aw hayra dalika tu aan taa ahayn oo kalena sheega buu nabigu ka yidhi
تأهرت هالشيء تكلا قدر سويان أو غير ذلك تاتو أنا هنا هو ذاك بول مرادك لأنه مليه مرادك جواب أنت أصولوني بس ذكبوها صحابي قاسي أذكياء إن كنت ما أنت إسكا عقله وقفر ربع الغرض ولاني كان وانين عاقله وانين خبير ويا وسياسي سياسي حيل ديرو أركتين ديرو كنتم كسنة صوص عوضة إسبدل كجيس كأفريقيا كفر الله صلاة فجر قمته كذا ما يمته كذا بالغرض معك يا مركا خبير نلش الدم بقى الرنت ما كل حساب تمام ما حوك يا خبير مركا مدرسة حفظ القرآن انتو بشيء لما بقولوا أرضي انتو كسو حريستي لما تنمع على انتو قدي ما يري أرضي دا حفاظ القرآن يا علماء يقصوا صارا بأن إلى قيام هاجر روبو هنيقا هاي السعودية كاسا خبير أو حيلدر أو خبير حيلدر هو كفى الله جيس أفريقيا كان قال يسقى أذكياء بين صحابة محمد أي هاين أذكياء عقل بدن أو عقل جوج سوجي ده بي هاين أذكياء مركب النبي كويري أو غير ذلك تاتو أنا هاين وكلا ما يبوني توكلا ما قبض عنه تاون ما قبض بس تاسع الله مراد كي قوي تاسو إن الجنة كوجو أركب بس والرفيق ولا نقول فاعني على نفسك بكثرة السجود بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا السجود فرح بدل هذا يقول يقول صعاوي سجود هدين بدي سجوده نبي قال جميع بشاريه هكودك منه أو عبادته يطاعد قعناها كلا بنني سجود هذا يقول صوبه يقول نبي كويري وركي جنة الله بشاريه هدي النبي محمد وليه هاي سجود صوبت صو إنك أنا مركا إنك أنا حال كان محاضر ملايين سامركا سوينا أوينما سوينا الله كعبس قصيب بدينما هوينكنا كل وين مقليان إياكنا قصد بانو قدرية هويني حبشية ومدوبين أو وحيل هاي الحنون كان ليلة صحدين واتقانا وقلل وحنون كوفق ودعو مير كيسونا ودبالمو تغو مير كيسو هويني إذا سأل النبي قلنا أتمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أسرع جدتك أيها كل عابيت جدتك مرضنا مركز بيجا بيلهانتا إلهي إي ويدي بيكتر عافمات إلهي عافمات إي ويدي ما هن حنونكم مدح ورير ير حمد ير وصوحدن مير كنبا قفك دبول ما يوتقيا ما انكي سيبا بدل ما بيرمونا يبا مركب النبي صلى الله عليه وسلم حداد دونتو خيار بو النبي قصيه خيار عجيبه وحين حداد او ادكيساتو او صبرتid جنات هلي حداد دونتو ان الهي كو بريو عافمات قصينا حدان هو كو دعين مركب النبي عليه الصلاه والسلام كل سدا كو يري ايات يا رسول الله بل وان اسكو نقونا يركادي وسو نقطه مركب يا رسول الله حنونك اسك دابيتر حنونك halkiisa hay joogo iska dhaaf isaga xanuunka laakiin miduna aniga iiga ducee meeshaan doonahan iskaga dhacee yaanan maradu iga baylah min awradeeda la arkin bay ku tiri haweenkoogi ragoogi soo isku aragti ma inaka haweenkeeni rageen isku aragti ma maanta waa kala duwanahay لأن أمداس مال كليه بيها كودا عبين مشرب كليه بيها كودا عبين معلم كليه ودا تربية دي حنون كيسكت دابا كتري ماشي ساجوغو هسكت عدعو هذا جنبا كوهلا يصدق كلها في السقع لكن ماشي عندنا عن اسكا دعي يعني عورضي ذا لارك النبي الله مرضي يقبل لحمن يدو مير كيغو دبل صومي waliba qofkaasi haduu waa markaan salaad qofka lagu lahayn baa leeyahay marka uu soo kaco un baa qofkaasi inuu tukado shariicadu ay dhigaysaa wixii marka iyada jirkeyga soo gaara dambi ma qabta iyadu inagana maanta gabdhaheena qaarkood ayagoo maankoogi aqligoogi uu soo jeedo oo shaqaynayo
ayaa laga yaabaa dhar xun intay xidhatay inay ragga hormartay banaanka marto, ama aabbihii baad arkaysaa inantiisa kala raalliya dhar xun inay xidhato, isaguna masjidka kugula tukan hadduu doono safka hore, dhashiisiina dhinacay socdaan iyo haadkay marayaan warba uma hayaba, iyadoo miyirkeegii uu daboolmay oo suuxday oo jidka taallo, marada ka baylahmaysa iyo aragga cawradeeda raggu ay arkayaan ayay ka baqaysaa ee ka xishoonaysaa. markaasay nebiga ku leedahay ii ducee yaa rasuul allah in maradu iga dhaqaaqin maradaydu bas. uu u duceeyey nebigu sal alla alay slam. meel kastay ku dhici jirtay maraduna kama qaadma jirin baa la yidhi. ibnu cabaas radia allahu canhuma, ilaahay raalliha ka noqday cabdillaahi ibnu cabaase, waa khilaafadii cuhmaan binu cafaan buu cabdillaahi soo gaadhay isagoo indhabeelo da-weynaaday, bal weliba uu ka dambeeyaan u malaynayaa, ayaa waxaa dhacday inuu taabiciinta ku yidhaahdo cataa ibnu abi rabax oo ardaygiisa ahaa, haweeney ahluljanna ma ku tusaa? islaantaa madow halkaa duqdaa madow maad arkaysa? ha waa ahluljanna. say jannada ku mutaystana uu sheegay markaas. marka adduunka dusheeda walaalayaal dhibaatada inagu soo gaadha waan u adkeysanaynaa, faqriga waan u adkeysanaynaa, nicmadda ilaahayna siiyana ilahay baan ugu mahadinaynaa. muminku labadaa midun waa inuu ka dhexeeyaa bayna shaakirin wa saabirin. hadduu qani yahoo loo nicmeeyeyna waa inuu noqda qof shaakira. shaakirku waa maxay? waa qofka sida ilaahay rabo u noolaade u socdo weeyaan. hadduu faqiir noqdo faqri ilaahay kuu qadaraa, ama imtixaan iyo ikhtibaar ilaahay kugu rida oo qof baa kaa xanuunsan, adigii baa jirin, ilmihii baa wax kaasa noqdeen, waa la sabrayo waa la adkaystaa un. muminku ma ashkatoodo. haddaad aragto qof muslimo oo shahaadanaya oo balaayo isaga ku dhacda dadka mar walba uga sheekaynaya, waa qof ilaahay ka cabanaya baa la yidhi. wuxuu leeyahay nin ilaahay baa dhibtaa igu haya ayaa iga qabto, halkee ku dacweeyaa. muminku ma ashkatoodo. shakwada muminku ma leh, muminku sabirkuu leeyahay. hadduu qani yahayna waa shaakir, hadduu caafimaad la siiyey waa ku shugriyaa caafimaadka, haddii arsaaqada loo waasiciyo arsaaqada uu ku shugriyaa, haddii nolosha lagu yar cidhiidhiyo lagu adkeeyeyna waa la sabra. lanna nolosha adduunka ilaahay isagaa sidaa ugu talagalay dadku inay kala sarreeyaan. marka adiga dabaqada ilaahay uu kugu dhex abuuray diinta uu ku dhex qaada bas, ilaahay uu ku raaligeli. madax buu kaa dhigay, madaxnimadaadu waa mas-uuliyad ilaahay ku saaray, ajarna waad ka helaysaayo haddaad dadaashado ummadda aad talada lagugu dhiibay, walow qoyskaagaba ha noqdo, tolkaaba ha noqdaan, degmaba ha laguu dhiibay ama tuulaba ha laguu dhiibay, haddaad cadaaladda ilaaliso cadaalad samaysid, wixii wanaagana aada ula dadaashid dadka, haddaad asiibtana 2 ajar baad leedahay, haddaad geftana 1 ajar baa lagu qorayaa baa lagu leeyahay. anigii waa la mid, caaqilkii waa la mid, islaax daata bayn ajar intee leg baa ilahay kugu siinaya. marka walaalayaal diinteenna macan ma aha diin ku kooban masjidka keliya, bal diin waa diinteen islaamku waa diin nolosheenna oo dhan la doonayo maaragtane inaan ku maarayno. taajirku tijaaradiisa markuu bilaabayo uu culammada intuu u tagu yidhaahdo qaabka islaamnimadu tijaaradda u dhigtay ii sheeg. bishii ramadaan baa soo dhawaatay ka soo qaad, inta ramadaan uuna soo gelin ninka soonka lagu leeyahay waa inuu culammada u tagu yidhaahdo soonkiibaa soo dhawaaday bal axkaamtiisa noo akhri. ninbaa buka ka soo qaad, inuu soomuuba karaynba, waxa laga raba waa inuu culammada sii weydiiyo. xashkaad u socota ad u xamaan qaadatay, cilmi alxaal weeyaan cilmigaasi, waa inaad culammada weydiisaa. inantaadiibaa guur galaysood rabtaa inaad dhisto ood da-dii gabdhaha lagu guurinayay gaadhay, waa inaad culammada u timaadoo tiraahdo shareecadda islaamka guurka sidee u dhigtay bal ii sheeg. adigaa raba adaa nin dhalinyara ama inaad guursataan rabtaa, islaamnimadu diinteenu islaamku guurka maxay ka qabtaa bal ii sheeg. qaabka loo guursanaya waa qaabkee, awlaadda sidee loo tarbiyadeynaya. war imaamka masaajidkaad ku tukanayso salaada keliya kaga daya laguma leh, imaamkaagu muxamed buha calayhi salaatu wasalaam. nebi maxamed marka uu ku leeyahay salluu kamaa ra'aytumuunii usallii, saadii aragteen anigoo u tukanaya u tukada markuu nebigu ku leeyahay, waxay ka dhigan tahay waa nolosha oo dhan aniga kaga dayday buu nebigu yihi, noloshoo dhan. marka nebigeena ha ku dayano oo ubadkeena diinta han barno,
inakuna diinta ha ka shaqeyno diintu shaqay rabtaa maanta shaqo adduunyada ma laga shaqeeyaa mise waa iska timaadaa yaa sheekh ya waa iska timaadaa miya soo loo kalahaa waa laga shaqeeyaa shaqada adduunyadu ay rabto shaqo ka badan bay diintu rabtaa ay ogaada waliba diinta haddaan xooggeena iyo caqligeena iyo dhaqaalaheena iskugu geyno diin ka shaqeyno noloshan adduunka ay noo noqonaysaa janno waa meesha soomaalidu ay tiraahdo waxa umusha udana baa ilmaha udana islaantu markay dhasho odagu ilmaha cunto uma keeno laakiin umusha ayuu nafaqeeyaa oodkac buu usoo dhigi subag buu u keeni malab buu u keeni timir buu u keeni canu u keeni lacag yar buu siini iyadu waayo wuxuu leeyahay hadday iyadu nafaqo leedahay ilmuhuna hooyadiibuu nafaqada ka qaadanayaa waxa umusha udana baa ilmahana udana waxa diinta udana ayaa nolosheena adduunyadana udana ogaada hadday diintu inaga dayacanto nolosheeni baa dayacantay ogaada marka caamadeenna iyo culumadeenna iyo dhallinyaradeenna iyo odayadeenna iyo ganacsatadeenna iyo madaxdeennaba diinta xil bay naga saaran inaan ka wada shaqayno oon waktigeena ku bixino oo ijtimaacyada ka qayb galno oo habeenka jimcihii fikradiinka markas baytulmaal ka qayb gashaan oo ijtimaacyada dacwadana aada noo timaadaan bisha September 23 September ijtimaacii Hargeysa dhici doona January in awalkeegana ijtimaacii Djibouti baa dhici doona wadanka dadkii iyo dalkiiba xagga buu inaga xigay bal sidaan anaguna neegu imanayna marmar reer Nairobi inagoo masjid waliba hayaamahan masaajidadan soo maraa duhurkii masjid baan maray casar masjid baan maray maqrib masjid baan maray subax masjid baan maray hadalkaaba dhibay anigii baa iska daalanba haddana bal insha Allah inaguna sidaas oo kale inaad noo timaadaan oo soo ziyaarataan bal isku daya insha Allah dhahada walow haddaad wada iman karin inaad masjid salaam oo kale masaajidkeena masjid salaam baan u maray magaciisa inaad jamaaca soo dirtaan oo taladan jamaacadaasi masjid salaam bay ka socotaa insha Allah dhahada Allah inagu anfaco hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayidina Muhammad Allah